ilaahay baan idinku dheershay bal arxan darrada iyo cawaaqib xumada iyo cawaanimada labada nin fiiriy inantaas sidii walwaalayaan wax baarsiin wax muddo neef carafo la qalay iyaga war waan yaabay bal la daawado yaabkii waxaan la yaabay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما سومالوين ميل بدوي كجوكتان الله هو وحنا كود رجينا يا عافماد يا عباد الصبر يا عبلقه midkastoo muraad leeyna baa muraad kiisa mid qarka dhow ku xanuunsan caafimaad taas iyo ku geeriyooday jannadii udgoonad hooy weeyay ku laga geeriyooda sameer imaan kasi warash haysta ee baa dhashay barakay ku dhul sugayeen dal badan oo barakaysan hasiyo la maraan dalka iyo nabadii bulshada Soomaaliyeed midna Allah uu wajiriyay intii noor uu joogtay gacalo barakoob iyo soo fariis shaaxina soo shubtay intii dimiga soo birtan ag joogin waa noo helay gacmadeedii barakoobina subscribe tisiida war waxa la yaabay nimana kan gabadhaas sida u galay waa ciidamo reer Puntland weeyeen inanta sida waxa loo galayaa oo koodii August oo maalin bulshada reer Puntland ku dalkeedii iyo gayaankeedii iyo dhulkeedii bay joogtaa calankii Puntland bay huban tahay ya waa dareenkeedii aragtideeda lagu tixgelin oo lagu naxariis kuwa u soo cararaysay dhibaatada ka dhawri la kii kufsanaya uga soo caban lay kii magaranaysa ay tuuga u sheegay kii asaw galay ala waxa loo dabaaldegaya sanad guuradii 22aad ee Puntland calankii bay ku soo sharaxatay abni badantii garo waa hayna waa joogtaa abni badan gaani yalaan haweenka lagu ciiseynayna askariga ilaalinaya sida u galay ma wax aqliga iyo dareenka iyo damiirku qaata marka soo wax qof muslim oo ku dhaqmo waxa uu ku dhaqmay ninka askariga ama nimanka askariga iyo naagta bilaa dareenka ah ee la socota ciidanimada Soomaa inaad cadow ku noqoto shacabkaaga oo dulinimo la doonta walinanta dhaqanka tilmaamay iyo diinta tilmaantay in sida loo silciyo iyo sharciga tilmaamay aan doonayna inaan ogaado maxaa laga filayay maanta Puntland maxaan saarkayna de wax dulinimo aan arkaynay wuxuu dareen ku qaadan askariga noocaas oo kala ana matalaadeedii macnaheeda ma laha illa maamuusana ma mudna xalay dhan buu qeylay kolkaas wuxuu kaliya xabaan ilaalinay horta dhammaan geyga Soomaaliyeed ba isku soo wada duubo waxaba khalada ninka askariga ah in uu balwad ku dhex isticmaalo waqtiga shaqada iyagoo qeylay arkaysa ay qoligii wada taawad buu qoray oo baxatay sigaar baa u shidan madaxweynaha baa taagay madaxdeennuna waa kuwa wax bartay qaarkood qurbaha ka yimi sharciyada adduunka ka jira og xilliga shaqada lagu jiro in uu wax balwada isticmaali karo haday doonaan qaarkood way cabsan yihiin balkaasoo la yiri shacab ilaali ka war balkaasoo gabar soo agmartay ka war waxba ka tusaysaa inuu gabadha lugta jiido la duubo hano yiraahdo dadku maxay iga aamusay ilaan man talibaan loo dhisin dhisidu maaha qofka in la baro sida xabada loo rido waa in qofka la baraa qofka kan uu shaqeynayo wuxuu ugu shaqeynay inaysan ahayn awood u sheegto ase ay tahay inuu qofka kan dareen siiyo daryeel siiyo dhibaatada ka difaaco khaladka hadduu sameeyana dee dariiq iyo magaranaysa sharci iyo wax la tilmaami karo u maro gabadha marka uu lugta jiidayo waxay doontaa samaysay miyaysan mudnayn in xataa haddii khalad lagu qabtay dariiq iyo dow iyo qaabka ka qorxoon loo kaxay war miyay magaranaysa muslim ahayn gabadhu yaa u baneeyay in lugaheeda qabto inuu gacmeeda qabto inuu tafaheeda halka meel daawanayaan saa u qaawiyo yaa u baneeyay sharciga tilmaamaya waa sharci aan ka weeyaan sharci islaamna ma aha xataa xeer gaaleed buu sanahay waxaan u arkaa marka wax damiir xumo ah waxaad qarsato baktiyana way ku qarsadaan waxaad qarsato way ku qarsadaan tilmaamayo iyo tusaale bixinay caashiyar ilaahay u naxariistay kolkii la kusaday in nimanka waaweyn ee balwada maandooriyaha isticmaalaya kufsadeen iyagana ilaahay u naxariisto waxa weeye wixii sharci waajibkooda waa la bariyay si wada jira looga dhiidhiyay inta iyo xumaanta waa la sheegay iyo wax gaar inaysan ahayn waa la dilay maxaa ka dambeeyay kufsiyo la maqlay Puntland ka dhacay ma dhicin waan ku amaanaya madaxweynaha hase ahaatee tan waxa tilmaamaya madaxweyne nimana kan waxa sameeyay maxkamadda in la keeno oo sharciga la mariyo tay qofka
qofka u soo cararayo u soo cabanaya waa qofkee hadduusan isagu kufsan buu barisida kan ciidanka ah gabadha cidlada waxa weeye isagu walwaalay ma meel la isku qaawiyaa maxilli la isqaawiyaa maxilli la ciila war haddii birmagoydadii iyo dadkii ilaaliska mudnaa dhibaato lagu sameynayo dee yaa la dhowrayaa shacabkana waxaa leeyahay war wixii balaayo aad qarsataan oo la aamustaan way idin qarsadaan mid kasta ishaaradiisa iyo tilmaantiisa xun iyo waxa khaldan uu sameeyo haddii la sheego kuwa kalena way cabsanayaan nimankaa falkaa xun ee anshaxumada aa sameeyey waxba ma dhaabaan kuwa liibiya joogay haweenka kufsada waxba ma dhaabaan kuwa muharibayaasha ah ee haweenka birta madaxa kala dhaca waxba ma dhaabaan oo dee waxba arxan iyo dareen ma samayn waxba uma reeban inanta iyo inanka dhalinyarada iyo qofka Soomaaliga ah ee birmagoydada ah haddii geeyigiisii lagu tixgelin waayo dareen lagu siin waayay xagee lagu dhowraya oo mid waa haween xuduud ma leh rag waxay doonaan ha kala samaysteen oo cunna ay isku qabteen ilaa shaydaan iyo shabaab brain ku dhex jiro xaaladda Soomaaliyeed maanta waynu aragnaa laakiin haweenku war waa kuwa ehel dadka ka wada dhiga qaraabo ka dhiga walaal ka dhiga waa birmagoydo dhibna ma mudna ciil iyo gulgul iyo colaadna ma mudna askartuna ma aha kuwii dibindaabiyada bad lahaayeen waa kuwii ay u soo carari lahaayeen waa kuwii ay u soo behliyoobi lahaayeen waa kuwii ay dhibta ka magan gelin lahaayeen way dhalinyarada waxaan leeyahay war sheega wixii xun aad aragtaan magaalada doonto ha ahaatee qofku doono ha ahaatee idinkay dantiina tahay ma waxaad doonaysaan habluhu inay naga soo tahriibaan maalin walba waxaynu ku jirnaa gabar baa la kufsaday gabar waxaa loo aruuriyo wiil baa la dilay wiil baa liibiya ku dayacan oo dhagax ma waxaysan ku jiraynaa waxa lagaga hortegi karaa khaladka iyo waxa xumaanta ah oo eebbahayna mamnuucay nafteenana aanu roonayn inaynu diinno danteennaana ku jirta nimankaa waxaan leeyahay caqli iyo garaad iyo garasho aad leedihiin toonna ma jirto waxaad ku dhaqanteenna wax muslim ku dhaqmana ma aha wax qof caqli leh ku dhaqmana ma aha wax bini aadan ku dhaqmana ma aha askar baydan wax ka ogeen ibni aadannimayna wax ka og waa iska nooshiin waa nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi salaada marka uu aadanaha hayse kala dardaarmo iyo muslimiin waxa uu kala dardaarmo waa haween waa dumar weeyaan waa masaakiin waa birmagoydo dalkeedii bay joogtaa haddii dalkeedii aad ku ciishay aad ku guulguushay dee qurbahana maxaa kaga horreeya bahlaa kaga horreeya kaleete waxaad doonaysaa kuwa dhashoodii laga qaatay iyo inaad iminka kuwa waxaa sameynaya kaba nixmaya kuwa dhasha laga qaadanayo iyo kuwa diinta ka baxaya iyo ilaan kuwaasayba dareen ku siin waayeen degaankoodii iyo dalkeedii ay joogeen sharciga hala soo mariyay baan leeyahay nimankaa ilaahayna kama xishoon aadanihiisana kama xishoon oo waxaan ka codsanayaa deegaanada Soomaaliyeed dadka maamula nooc walba yihiin iyo madaxdooda war dulmiyada tan muuqda ee aad aragtaan waxa weeye ka falceliya oo wixii geysta qaqabta anigu ma ogi iyo kuwa iga hooseeya arrinka aan u xil saaray aakhira shaqaymayso mas-uulka koowaad eed iyo in buu ku leeyahay wax ugu hooseeya ee maanta lagu sameeyo aakhirana waa la isku xisaabaya waxa weeye barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayno waxaan leeyahay warsan iyo war khayr assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.